Learn English through story. Ku baro Englishka sheeko. Part 3 qaybtii saddexaad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English with Susman official channel. Learn English. Ku baro Englishka through story sheeko. Part 3 qaybtii saddexaad. Sheekadaasoo ciwaankanaga uu ahaa Lost in the City, ku lumay caasimadda ama magaalada. During the next half hour, inta lagu guda jiray nuskii saac ee xigtay ama dambe, a minute seemed, daqiiqad ayaa u muuqatay to take longer than usual, in ay ka dheereed sida caadiga ahayd. Ali wished waxa uu rajeeyay the time waqtiga would pass inuu ku dhaafo quickly si dhaqsi leh. He became tired, waxa uu noqday mid daalan, hungry, gaajaysan, and thirsty, oona ooman. When goortii he looked at his watch again, uu eegay ama fiiriyay saacadiisa mar kale, it was only 1/2 midday. Waxa ay ahayd maalintii barkeeda iyo nus sac, ama 6 sac iyo bar, ama 12 bar. I can't wait for a whole hour. Ma sugi karo hal sac oo dhan. Ali thought, ayuu ku fikiray Cali. I will walk around. Halkan agagaarka ayaan isaga lugu baxsan doonaa, ama ku socon doonaa, ku lugay doonaa. I will walk, waxaan ku lugay doonaa ama ku socon doonaa round agagaarkan. I'm not a fool, ma ahi doqon, to be lost, ku lumayo ama ku habaabayo in the city, caasimadda ama magaalada, oo ay misaaniga ah. He turned to, wuxuu u soo jeestay a man who was standing, kaasoo taagnaa near him, agtiisa, and said, wuxuuna ku yidhi, my bag is safe here. Halkan badqab ayay ku tahay. Isn't it? Miyaysan ahayn? Yes, it is. How way tahay? Replied the man. Ninkii baa kaga jawaabay. You are not likely to be long. Ma dhici karto ama ma ahaan karto inaad ku dheeraato. Are you? Ma tahay? Oo miyaadan ku dheeraanin halkaarka adiga? No, I won't. Maya, kuma sii dheeraan doono halkan. Ali replied. Ali ayaa kaga jawaabay. Improve your pronunciation. Improve your pronunciation. Learn English through story. Part 3 qaybtii saddexaad. Lost in the City. During the next half hour, a minute seemed to be longer than usual. Ali wished the time would pass quickly. He became tired, hungry, and thirsty. When he looked at his watch again, it was only 1/2 midday. I can't wait for a whole hour, Ali thought. I will walk around. I'm not a fool to be lost in the city, or am I? He turned to a man who was standing near him and said, my bag is safe here, isn't it? Yes, it is, replied the man. You are not likely to be long, are you? Are you? No, I won't, Ali replied. Thanks. ألف لخردبي ألف لصدبي ألف لقودي